هالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك دمانتين مeel kasoo joogtaan. maanta waa maalintii ugu dambeysay bisha Ramadaan, waa maalin khamiis ah. ma sha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha inaga dhiga kuwii ka faa'iideystay laga aqbalay acmaashii aan soo sameeynay Ramadaankii. ma sha Allah Ilaahay idankiis Ilaahay inoo aqbalo. sidoo kale ciid wanaagsan, ciid u diyaar garow. isbuuc hadiga barateen hal sheeko inaan soo gudbiyo. maanta waa sheekadeeni markaa sheekadeena maanta waxay u dhacaysaa sida tan. waxa jira nin boqor ah. ninka boqorka waxa uu dhalay hal gabar. gabadhaasi aad ayuu jeclaa, sida caadiga boqortooyada gabar ayay u ahayd. boqorka gabadhiis markay ay qaangaartay waxa uu u hibeeyay katiin ama silsilad aad u qiimo badan ee laga yaqaan boqortooyada. silsiladaasi waxay ahayd silsilad aan waxba lagu doorsano, aad loo jecel yahay, laakiin wuxuu ugu hibeeyay gabadhiisa. maalmo kadib markii boqorkii gabadhii loo hibay silsiladii ayaa silsiladii la waayay halkay ka dhacday. saad ogtihiina boqortooyada waxaa ku hareeraysan ciidamo amni oo aad u ilaaliyo. ma jirto cid soo geli karto ee xadi karto, ma jirto cid dhici karto, laakiin waa la waayay. su'aalo badan ayaa la isweydiiyey oo laga manaashaqooda. waxaa la siiyay madhan dabaysha ayaa qaaday, maadaama dabeyl badan ay socotay. waxaa la siiyay shimbirihii guriga daaradda ku ciyaara ayaa baalka surtay oo la tegay, laakiin waa la garan waayay. si kastaba haatee boqorka wuxuu yiri cid kasto raadin karta raadis, meel kasto laga raadin kara la raadiyo. waa la waayay. maalinta boqorka wuxuu isugu yeeray dhamaan boqortooyada cidka dadka ka tirsanaa. waxa uu yiri markaa qofka soo helo ama keeno katiinkaasi meeshu doono ka keena, waxaan abaalmarin uga dhigayaa ee aan siinayaa lacag gaaraysa $50,000. sidaa darteed qof walba waxa uu ku hamiyaa markaa inuu asaga keeno si abaalmarinta uu qaato. raggii markaa meesha joogay rag kamid ahaa, nin kamid ahaa ayaa waxa uu aaday meel safar buu aaday si uu u raadiyo. magaalada geeskeeda waxa ku yaalo webi biyo mareen ah, meel biyo mareen ah oo boosaneerada musqulaha ay soo maraan. waxa musqulaha ka soo baxo dhan ay soo maraan oo aad u urayso oo wasaq badan, boosaneero camal weeyaan. marka ninkii asagoo wadadii maray halkii biyihii boosaneeradii jeexi ama webigii ay yaaleen ayaa wuxuu ka arkay katiinkii wax u eg oo dhalaalayo. marka ayaa wuxuu isiiday, ma adiga ayaa ismoodsiiyey mise waa sax? isha ayuu la sii raacay mise waa katiinkii? marka ayuu isku sii daayay boosaneeradii meeshii wasaqdi urka badneed. dee qofka meesha galaaye oo boosaneeradaasi ama wasaqdaas gacanta la galaa waa halis. waxa uu marka dul istaagay meeshii, markuu katiinka ka dhex arkay gacanta ayuu dalaq siiyey si uu soo qabto, waayo lacagta ayaa ka muhiimsan oo isleeyahay, ma garanaysaa. marka uu gacanta la galay boosaneeradii meeshii ureysay waxba ka arki kari waayo, haleeli kari waayo. markaasuu gacanta kala soo baxa, mise gacanta lama eegi karo. marka ayuu isiri midhan adiga ismoodsiiyey. wuu kasii jeestay, haddana wuu eegay mise way taalaa. marka ayuu mar kale isku dayay ilaa xad inuu u dhawaado, laakiin way suurtageli weysay. waxa uu markii dambe go'aansaday inuu lugaha la galo si uu meesha u dhex istaago. marka ayuu boosaneeradii dhex galay, laakiin way u suurtageli weysay. isagii oo markaa gacmihii iyo lugihii dee ka wasaqaysan buu kasoo baxay. markaasuu siri isaga tag. markuu dhaqaaqa ayuu haddana arkay. markaasuu yiri may, $50,000 oo aad arkaysad ka tegaysa saaka absolute may. waa uu ku noqday. waxa uu markii dambe heer gaaray inuu dabaasho dhex galo isagoo dhan si uu u raadiyo. mar xagga u dhex seexda, mar xagga u dhex seexda, dhex dabaasho, marka usoo baxdaba raadiyo. isagii oo dhan wuxuu noqday boosaneero, ama ninkii dee wuxuu noqday qof aan la daawan karin. laakiin uma suurtagelin inuu helo. wuu carooday, wuu xanaaqay, dib u oga baxay, wuu isaga tegay. haddana wuxuu yiri may, maanta inaan katiinkaa helo ayaa jiro. waayo waa katiinkii isagaa wax meesha yaal, waa silsiladii. markaa dib ayuu ugu noqday. haddana wuxuu maalintii oo dhan isaga daba laabto. mar dhiiqadii iyo boosaneeradii gala mar kasoo baxa isagoo dee ninkii bedelan oo aan la eegi karin. baa waxa u yimid nin socda. markaasaa wuxuu ku yiri warhaada maxaa kugu dhacay? maad waalan tahay? maad caadi ahayn? markaasuu yiri may caadiyaan ah. markaasuu yiri war meesha maxaa kaaga lumay? dee inuu ninkii u sheegana ma doonaya, waayo ninkan hadduu yiraahdo $50,000 ayaa meesha taalo, guri inuu ka galo ayuu ka baqay. markaasuu wuu u meermeeriyay. ninkii markaa nin caqli badan ayuu ahaa. wuxuu ku yiri nin yahow waan ku caawinaya, kulli waad dhiban tahay, dee oo adigaan dee iska boosaneerada noqday, ilaahay ha ku caafiyo, aan ku caawiye, ii sheeg maxaa ku haysto. marka ayuu ninkii u sheegay, ku yiri katiinka noocaasaa dhumay, halkaas ayaan ka dhex arkaa, sidaa ayaana u raadinayay oo maanta oo dhan aan boosaneerada ugu dhex jiray. ninkii caaqilka ahaa wuxuu yiri ma kaa dhabaa? markaasuu yiri ha.
maantoo dhan ma katiinka halkaas ka muuqda aad halkaa dhibtan u maraysa haa haddii aan ku caawiyo sha waa ku caawinaya buu ku yiri waxna kaama doonaye bal horta adigu si aad u caafimaadid ilan danin waxaa tahay aan fiicnaan jirkiisoo dhanba wuxuu ku yiri katiinka halkaa ka muuqda ee arkaysid waxa meesha ka muuqdo katiinka ma aha waa reflex katiinka wuxuu saaran yahay geedkaa sare dushiisa ayuu saaran yahay qoraxda ayaa qabanaysa iftiinka ayaa meeshaasi biyaha ama qoyaanka kaa dhex tusayso laakiin katiinka geedka kore ayay saaran tahay marka ayuu kor eegay mise katiinka kor ayuu saaran yahay waa run qoraxdii ayaa reflex soo bixinayso reflexiga ayuu halkaa ka arkayaa oo gacanta reflex kuma soo qaban kara ile marka ayuu ninkii farxad la daala dhacay katiinka halkii kasoo qaaday isla markaana abaalmarintii sida ayuu ku helay waa maxay markaa xigmadda sheekada waxa weeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku socotaa anigu inta badan waxaan ka hadla waa dhalinyarada waxaan la hadlana waa dhalinyarada waxaan la taliyana waa dhalinyarada sheekooyinkeygana iyaga ku saabsan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waa sida ninkaas oo kale garanaysaa waxa u muuqdo hadafkoodii riyooyinkoodii wixii nolosha ay kala haayeen ayaa u muuqdo laakiin waxa ay ku dhimanayaan reflexigi hadafkii ma hayaan reflexiga qoraxda ay bixinayso kale ee katiinka ay ku dhimanayaan fahmaysaa sababtana maxaa keenayo sababta waxaa keenayo number 1 horta ma haystaan qof role model ah ee ay ku daysadaan ama coach ah ama consultant ah ee la taliyo ee waxa ay rabaan sababta ay u rabaan maxay ahaday ujeedada ay u rabaan meesha ay u mari lahaayeen qof tusi ma haystaan number 1 la taliyo ma haystaan oo calaashan qof dariiqii tuso ma haystaan dad kaga horeeyay xaaladaha maanta ay ku jiraan oo role model u ah ma haystaan 2 3 ma haystaan kalsooni ay isku qabaan ay ku kalsoonaadaan waxa ay doonayaan inay gaarayaan oo ah waxa la yiraahdo visualization inaad qayaaligaada sawiratid isla markaana aad ku dhaqaaqdid ma haystaan laakiin waa iska ordaan haddii online laga shaqaystaa la yiraahdo qof walba uu soo xixita wuxuu leeyahay online kaan galaya kadibna markii gidaarka uu soo taabto ayuu dib u carray markaas uu dhahay meeshan waa lagu fashilmaa meeshan waa lagu kashifmaa meeshan bilaya taal meeshan dadka lagu dhacay meeshan dhibaata taalo waa sida ninkii dhiiqantu laga gal markuu kasoo noqonayo kale markaas ay isdhiibaan sidoo kale maadaama aysan haysanin dad role model ah dad tuso albaabka dariiqa u shida aysan tusin iska daba laabtaan hadhow way inay jabaan number 1 taas ayaa haysato dhibaatada haysato oo tan labaad oo haysato waxa weeyaan dhalinyaradeena ay reflexi wax uga dhex raadinayaan waxa ay rabaan maanta waxa ay bilaabaan inay berri ay ka mid dhaliyaan qof baa soo ordaay meel buu bilaabayaa wuxuu rabaa berri inuu lacag sameeyo wuxuu rabaa berri inuu guul ka gaaro wuxuu rabaa berri inuu wax kasta sameeyo adduunka taas kama shaqayso dhalinyaro adduunka waxaa ka shaqeeyo waxa aad waqti gelisid fahmaysaa waxa aad waqtigaada gelisid oo hurtid ayaa shaqeynaa wax kasta ee wanaagsan aad horumar ku gaari kartid waqti u baahan yihiin dulqaad bay kaaga baahan yihiin samir bay kaaga baahan yihiin cilmi iyo aqoon bay kaaga baahan yihiin ma fahmaysaa laakiin haddaad tidhaahdid maanta lacag baan halkan gelinaa beri waxaan rabaa millionaire inaan noqdo absad ma dhacayso haddii aad tidhaahdid maanta waxaan bilaabayaa shaqo ayaan bilaabayaa berrina waxbaan helaya ma dhacayso waa inaad waqti badan hurtaan dhalinyaro waa inaad xirfado badan barataan qofka hadduusan xirfad lahayn xilliga maanta lagu jiro uusan xirfado lahayn waxa uu noqonayaa sida ninkaasi reflexiga wax ka raadinaya katiinka halkaas u saaran yahay wuu u muuqdaa asagana halkaas ayuu boosaneerada ku dhex jiraa so haddii aad maanta teknolojiyadan la jooga qarniga 21 lagu jira aad xirfad lahayn soo xirfadda waa katiinkii halkaas ku saaran tahay reflexiga aad wax ka dhex raadinaysaa waxa leedahay waxaan inaan helaa rabaa xalwa lacag sheegta halkaan lacagtan waan sameynaa maxay xirfad ma lihid ma sameyn kartid waa inaad xirfad la timaadaa waa inaad xirfado barataa dhalinyaro xirfadaha haddaadan baranin wal magaariis sidoo kale dhalinyaradeena waxay ka ooman yihiin wax la yiraahdo niyadda ayay ka ooman yihiin niyadda ayay ka baahan yihiin qofka marka uu niyadda ka baahan yahay ma dhergo laakiin markuu caloosha ka baahan yahay wuu dhergaa sababta maxay tahay qofka markuu caloosha ka baahan yahay cunto haddii la siiyo wuu dhergaa laakiin qofka markuu niyadda ka baahan yahay wax kasta haddii la siiyo ma dhergaa
soo marka niyadda ay ka baahan dhalinyarada sababta niyadda uga baahan maxaa waa number 1 ma kobacsano maskaxiyan ma kobacsano waxaan ka soo hadlay 5 tiir ee nolosha inuu qofka kobciyo oo ay ugu horeysay maskaxdiisa qofka inuu dhiso oo uu la yimaado maskax dhisan oo cilmiyeysan 2 inuu spiritualkiisa dhiso oo la yimaado qof horto ilaahay ku xiran oo xiriirka isaga ilaahay ka dhaxeeyo hagaajiyo inuu noqdo maxaa yeelay maanta dhalinyaradana hadaa dhahayd qof dhalinyaro ah ama gabar ama wiil aad tirahdid maanta waxaad u baahan tahay si aad guul u gaartid in aad tasbiixda qaadatid oo 5,000 oo tasbiix aad samayso hadaa dhahdo wuxuu ku leeyahay dawaalanta duqyaasha sameeyo waxaasi ana shaqadeyda ma aha waxaan ku shaqaystay isha ay ku leeyahay ma aaminsana calaashan maxaa ka maqan marka xiriirka ilaahay iyaga ka dhaxeeyo spiritualki uu ka maqan meesha ma fahmaysaa macnaha waxa aad yaalo katiinkii aad yaalo reflexigii ay ka dhex raadinayaan xiriirka ilaahay markaad wanaajisid waad barwaaqoobaysaa waad ergeysaa iimaankaadna wuu buuxsamayaa maalintii haddii 5,000 oo tasbiix aad samayso albaab kasta ilaah baa kuu furaya ducooyinka haddii aad habeenkii usoo jeedo salaatuleyl aad u kacdid ee aad ducaysatid albaab kasto iyo cid kastad wax uga baahantay ilaah baa kuu furaya soo marka spiritual waa inaad xooga saartaan ee aad dhistaan adigoo dhalinyaro ah 3 waa inaad dhistaan emotionkiina emotionka ayaa dhalinyaradeenna ka xoog badan wax kasta waa la yiri ku carar oo la sheega ku carar adigoo aan hubsanin analyze aan sameynin waska dhaqaaqaysaa bari markaad bilowdo waxay kugu dhacan cabsi ayaa ka soo hor istaagaysa waad baqaysaa shaki ayaa kugu jira kalsooni buuxda ma haysatid si aad kalsooni u heshid emotionkaada waa inaad master emotion samaysaa in ilaa aad barataan mooy emotionka iskama imaano emotionka ilaa master garee maxaa kamid ah qashuuca ayaa kamid ah waxaa jirneen asxaabihi kamid ah sheekooyin badan waad ku maqasheen oo marka uu leeyahay markuu oranayo waan salaad baan gelayaa halayga jaro lugta qaliinka aan galo macnaha dareen ma dareemay ilaa lugta laga qala salaada ayuu ku jiraaya maxaa yeelay because waa master emotion marka asxaabigaas la weydiiyay wuxuu yiri aniga wuxuu yiri inaan emotionkayga master gareeyo oo aan qashuucayga hadda ku noolaado oo aanan ka walwalin wax tagay oo aanan ka walwalin waxaan wali la gaarin waxaan ka soo shaqeynaa 20 sano 20 sano waa ku noolaa soo marka emotionka waxa la karaba islaamically xataa waa muhiim inaad dhistaan emotionkiina physicalkiina inaad dhisid waqti hurdo inaad heshid cunto aad cuntidina cunto yar wax tar leh inay ku ahaato cabitaan fiican inaad heshid ma fahmaysaa iyo financialka inaad dhis lacagta iskama imaanayso shanta tiir ka mid tahay waa inaad maskax u samaysid buug badan aad akhrisid horumar aad gaartid xirfado aad samaysatid ayaa lagu gaaraa financialka so in aad marka haddii aad doonaysaan qof walba waxa uu rabaa sacaadada nolosha waxa la yiraahdaa iyadana waa 5 inkastoo dadka gaalada ay 4 ka dhigaan laakiin anaga islaamikali 5 ka dhigaynaa oo ah ku qofka muxuu rabaa farxad caafimaad qaninimo okay love oo jacayl ah iimada uu dambayso janna aakhiro adduunka dib inuu qofka janna helo 5taas hadaa rabtid inaad gaartid qof walba intaas rabaa ileen katiinka ninka soo raadinaya wax kale ma raba intaas raadinaya 5ta inaad gaartid haddii aad rabtid 5 tiir nolosha dhis way isku xirantahay hubaal maanta adiga oo halka aad joogto aanan ka tahriibin aanan cid kale aadin aanan qof kale wax weydiisanin ayaad noqon kartaa qof qani ah ayaad noqon kartaa maskaxda qani ka ah marka ha noqon qof niyadda ka baahan noqon qof niyadda ka dharigsan daawada ujeedka sheekadeena waa intaas maanta aad wad mahadsantihiin ciid wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu